بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم. waxaan salaameynaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan, gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed. waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka, salaanta cizada iyo sharafta leh, salaan qalbiga ka soo go'day. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaan waa maamulka macadka Midnimo Institute for Political Science and Knowledge. macadku mar koowaad iyo mar saddexaad gacmo furan buu ku soo dhaweynayaa. waxaan rabaa maanta anoo magaca macadka Midnimo Institute for Political Science and Knowledge anoo magaca ku hadlay, waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigno aqoon tayo leh, qualified leh, waxbarasho bilaash ah inaynu dadka la wadaagno. walaalaheen Soomaaliyeed waxaynu jecelnahay haddaanu dhalinyaro nahay, haddaanu nahay dhalinyarada aqoonta baratay, inaanu dadkeena walaalaheen asxaabta waxa weeye familiga waxa weeye dhammaan bulshada Soomaaliyeed inaanu wax way aqoon gaarsiino, inaynu waxa weeye dadka aynu uga faa'iideyno waxaan anagu baranay. إن شاء الله وحنا معدك وحنا دلنيرو وحنا أساس دلنيرو أور دلنيرة أو أقون جهنة كواسو بيسكود وحنا سيد دلنيرو حكبر كرنا سيد برشلو Soomaaliyeed حكبر كرنا أو وحبرشوا لجان قادة كرنا عالم كسي وكيني كرنا وحبرشوا معاسا. runtii macadka Midnimo Institute for Political Science and Knowledge wuxuu ugu talagalay basically in waxa way dadku qaab systematic online wax loo baro, in dadka waxa way aqoon qualified oo bilaash la siiyo. insha Allah hadduu alla idmo macadku wuxuu bixiyaa koorsooyin aad iyo aad u fara badan. macadku wuxuu bilaabi doonaa insha Allah koorsooyinkiisa bisha koowaad 2019 bisha cusub sanadka cusub uu bilaabi doonaa hadduu alla idmo. sidoo kale waxaa jira barnaamijyaal taxana ah oo loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed looga faa'iideeyo, sida barnaamijyada book fire-ka ama buwaagta reading-ka la yiraahdo, buwaagta akhriska buwaagta. insha Allah waxaanu ballan qaadeynaa oo bulshada Soomaaliyeed u ballan qaadeynaa oo naga go'an macadka Midnimo ka go'an insha Allah hadduu alla idmo in barnaamijyo taxana ah oo buugaagta ku saabsan insha Allah inaynu soo bandhigi doono. for example oo kale asbuuc kasta buug aanu akhrinay qiimaha uu leeyahay, waxa laga faa'iidayo, bulshada Soomaaliyeed faa'iido ugu fadhiyo akhriska intuu leeyahay beedkiisa. insha Allah kadibna review aanu la wadaagi doono dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan. sidoo kale waxaa jira koorsooyin bilaash ah oo macadku bixin doono insha Allah. waxaa kaloo jira koorsooyin kale iyo trainero badan, tababaro badan oo macadku bixin doono. sidoo kale wuxuu durba bilaabay macadku Midnimo Institute for Political Science and Knowledge xisaabaadka accountantiga qaab xisaabaadka oo online ah in wax way ganacsatada Soomaaliyeed si bilaash ama si free loogu shaqeeyo. insha Allah macadku wuxuu soo dhigay page-ka Midnimo Institute for Political Science and Knowledge iyo bartiisa YouTube-ka iyo website-ka. insha Allah barnaamijka ugu horeeyay uu soo dhigay kuwaas oo lagu falanqeynaa gundhiga xisaabaadka ganacsiga, qaabka loo xisaabiyo, qaabka ganacsiga u abuuran lahayd, sidee u noqon kartaa company qualified oo aqoon badan ka faa'iidi kartaa, sidee u abuuran kartaa business waxa weeye, sidee u abuuran kartaa ganacsi, sidee ganacsigaaga ku abuuran aad ula jaan qaadaydaa systematic online ka oo caalamka ah, sidee wax u xisaabsan kartaa. insha Allah waxa weeye part 1 buu bilaabay. insha Allah waxa weeye qaybaadka xisaabta hordhac buu insha Allah bixiyay. wuxuu soo dhigay habeenka Jimcaheed saacadu 4 PM markay uu soo dhigay insha Allah. waa sidoo kale barnaamijyo taxana ah. waxaanu kale ugu talagalnay buugaag waxa way abwaanada Soomaaliyeed ay wax ka qoreen inaynu insha Allah noona bulshada kale la soo wadaagi karno jimco kasta insha Allah inaanu la soo wadaagi doono insha Allah. sidoo kale macadku wuxuu qaban doonaa waxa way trainino tababaro saxaafada, organization-ka, ururada, hay'adaha, inuu sameyn doono consultant, inuu sameyn doono insha Allah inuu uga faa'iidi doono consultant, inuu la talin doono, inuu waxa weeye xafiisyada qaybaha HR-ka human resource management oo kale inuu kala shaqeyn doono insha Allah. xafiisyada qaabka wuxuu maamuli lahaayeen, qaabka employee first second customer oo kale waxaan buugaag badan aynu soo bandhigi doonaa jidda insha Allah hadduu alla idmo. buwaagta review-gooda aanu insha Allah dadka la wadaagi doono insha Allah. waxa weeye macadka Midnimo Institute for Political Science and Knowledge waxa ka go'an in waxa way dadku ay helaan waxbarasho. war sidee waxa way caalamka aan ula jaan qaadi karnaa? caalamka marka la jaan qaadi karo waa in ay dalkaaga iyo dadkaaga ay wax barteen oo aqoon ku filan waa inay leeyihiin waxa way waxbarasho qualified waa inay leeyihiin. waa in basically ay ka dhisan yihiin waxyaalaha skills-ka oo xirfadaha kale waa inay ka dhisan yihiin. qofku mar hadduu xirfad leeyahay, qofku mar hadduu skills leeyahay insha Allah dalkiisa wax badan buu tari karaa.
insha Allah waxa way farsamooyin gacan waa insha Allah abuuri doonaa ganacsato badan ama organization ururo badan ba insha Allah waxaan rabnaa inaynu dalka waxa way kor aynu qaadno aqoon ganacsi waxbarasho caafimaad haddii uu alla idmo insha Allah waxaanu jecelnahay inaan kor waxa way bulshadeena waxa way aan u halan qaadno sidoo kale macadku wuxuu soo dhaweynayaa dhalinyarada hal abuur kale oo dhalinyarada runtii specifically hal abuur kale wax soo dhaweynaya insha Allah macadku aad u soo dhaweynaya waxaanu leenahay waxa way soo booqda waxaanu leenahay noo imaada waxaanu leenahay waxa way aad baan soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa insha Allah waxa way macadku wuxuu kala ballan qaadaya insha Allah hadduu alla idmo in waxa way dhalinyarada hal abuurada la taageeri doono waxa way gacan waxa way dadaal juhdi iyo dadaalna lagu bixin doono insha Allah hadday ururo noqon lahaayeen hadday organization noqon lahaayeen hadday business noqon lahaayeen hadday haween noqon lahaayeen hadday waxbarasho noqon lahayd hadday caafimaad noqon lahayd insha Allah waxa way aad buu garab taagan yahay insha Allah sidoo kale macadku waxa jira buugaag uu soo bandhigi doono insha Allah inaanu buugaagta la wadaagno insha Allah for example buugan oo kale buugan wuxuu ka hadlayaa finance of accounting waxa way xisaabaadka ganacsiga waxa way accountantiga oo kale insha Allah buuga ka hadlaya sidoo kale buugan oo kale wuxuu ka hadlayaa sidoo kale asna business accountantiga oo kale ganacsiga runtii waxa way edition 15 oo kale way book aad iyo aad u caasim Frank Wood baa la yiraahdaa insha Allah waxa qoran la yiraahdo a lot of lining ba qoran nin aad u khabiir ah waa buugan qoray insha Allah ee buugu chapter badan buu ka kooban yahay sidaan ogsoonahay waa 42 chapters buu ka kooban yahay insha Allah annagoo turjunay oo Soomaali u turjunay oo insha Allah systematic fiican oo qoraal fiican annagoo ku qornay oo anagu aanu diyaarinay insha Allah iyo professor runtii aqoon fiican qualified wala insha Allah inay Soomaali u bedeleen book Soomaaliyeed ka dhigeen kadibna insha Allah laga dhigay buugaag Soomaali oo Soomaali wax lagu akhrin karo sidaan ogsoonahay buugaagta ganacsiga ama buugaagta xisaabaadka oo kale ee bulshada Soomaali ama ganacsatada oo kale way ku adagtahay runtii marka ay baranayaan waayo waxa ku qoran luqado badan afaf qalaadood baa ku qoran marka anagu oo dhalinyaro anagu macallimiin kaashanayna anagu professor kaashanayna waxaan ugu talagalnay inaynu buugta Soomaali u bedelno in waxa weeye systematic waxa weeye Ingiriiska ku qornaa in Soomaali loo bedelo insha Allah waa buug aad iyo aad waxa weeye very important way book insha Allah inuu ka faa'iido doono aqoon badan sidoo kale buugta noo yaala waxa ka mid ah runtii buugaagta for example oo kale ee diiwaanka maasooyinka oo kale waa book runtii aad iyo aad waxa ku qoran runtii waxa qoray Abshir Nuur Faarax Macabin la yiraahdo waa book runtii aad iyo aad waxa way abwaan Soomaaliyeed ka hadlayo oo rabna inaan runtii insha Allah dadka luqadii la wadaagno luqadii oo si jaanko is inaynu dadka la sii wadaagi karno dadkii waxa weeye aynu luqadii hooyo insha Allah aynu bari doono hadii uu Allah idmo insha Allah waxa jiri doona buugaag badan oo basically tarbiyadii dhaqankii waxbarashadii lagjarkii culture insha Allah waxa soo dhan buug ay ku saleysan yihiin taariikhdii Soomaaliyeed abwaanadii Soomaaliyeed buugaagta ay qoreen insha Allah waxa way waanu aad iyo aad baan jecelahay insha Allah inaanu waxa way la soo wadaagno magacaygu waa Suldaan Cabdullaahi Maxamuud hawlwadeenka macadka Midnimo Institute for Political Science and Knowledge annaga waxa naga go'an basically in aynu dadkeena aynu waxbaro learn apply adapt insha Allah waxa way waa aqoon learn waxbaro apply isku day inaha waxa way adaptation sameyn ka dhig waxaad adaptation ku sameeyay apply learn adapt apply waa qofka kaliya wuxuu ku baran karo insha Allah waxaan idinku salaameynaa salaanta islaamka salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh